halow goortii aan dhalanno waa la addimaa laakiin salaad lama tukado goortii aan dhimanno lama addimo laakiin waa la tukadaa addinka dhalashadeenna waxa uu leeyahay salaadda dhimashadeenna taasi waa sida ay u gaaban tahay nolosha adduunka in badan waxaa lagu imtixaamay xoolo badani halka qaar ay wajahayaan saboolnimo si la isugu eego samirkooda faqiir iyo taajirba waxaa u dambaynaya godkaas 2 mitira waxaadna halkaas kala kulmaysaa wixii aad adduunka ku soo samaysay haddii ay ahayd wanaag iyo haddii ay ahayd xumaanba haddaba inta aad adduunka ku nooshahay u noolow in aad alle oo keliya caabudo halkan waxaan kula talinayaa dad badan oo noloshooda ku eedaynaya walwal iyo walbahaar badan waxaan kuu soo gudbinayaa xalka keliya oo aad ku joojin lahayd walwalka faraha badan in aad farxad dareemi weydo noloshaadana nacdo kuna noolaato murugo fara badan waxaa sabab u ah kalsooni la'aanta faraha badan oo ku haysa nolosha barkeed waa farxad haddii aadan farxad haysanna nolol ma haysatid soo dhowow aan wada sheekaysanno waxaan kaaga sheekaynayaa 4 qodob oo aad ku joojin karto walwalka iyo inaad dareento farxad la'aan qodobka koowaad ha ka walwalin inuu alla ducadaada kuu aqbali waayey xaqiiqdii alla ayaa garanaya wixii khayr kuugu jiro qorshihiisana ayaa ugu wanaagsan qorshayaasha oo dhan 2 walwalku waa waqti lumis waxba ma bedeli karo wuxuu wareeriyaa maskaxdaada wuxuuna kaa xadaa farxaddaada ma waxaad doonaysaa inaad weydo farxaddaada waa maya haddaba jooji walwalka faraha badan 3 ha ka walwalin guuldarro iyo fashilku soo gaaray ku farax inaad cashar ka baratay waayo aragnimona ka heshay ogsoonow in qof kasta oo guulaystay uu soo maray guuldarrooyin fara badan 4 ha ka walwalin qalad aad samaysay qof kasta qalad wuu sameeyaa waxaan nahay bini'aadan iska hilmaan wixii la soo dhaafay horeyna u sii wada noloshaada 5 ha ka walwalin dharkii aad xihan lahayd haddii aad dhoola caddayso dhar walba waad ku soo baxaysaa 6 xusuusnow 99% waxyaabaha aan ka walwalno ma ahan wax dhaca keliya wixii kuu qoran ayaa kugu dhacaya waxaan aan isku murjinno ma ahan wax jiro waa waxaan annagu ka dhaadhicinay nafteenna 7 ha ka walwalin inaad guulaysan weydo waxaad tahay halyey waxaadna u tahay naftaada waadna guulaysanaysaa haddii aad la timaaddo dadaalkeeda 8 ha ka walwalin wax aadan awood u lahayn inaad xakamayso alla ma saarin garbahaaga culays aadan xamili karin dhibaatada adduunka oo dhan mas-uul kama tihid waxaad keliyoo mas-uul ka tahay waa naftaada 9 walwalku ma joojin karo waxa kugu dhici doono waxa uu kaa joojiyaa inaad ku raaxaysato wanaagga aad haysato iyo noloshaada 10 ha ka walwalin haddii aysan dadku ku jeclayn adigu naftaada jeclow ha isu beddelin hana iska dhigin qof aadan ahayn si dadka kale kuu jeclaadaan waayo waxa aad tahay waxaa kugu jecel qof 11 ha ka walwalin waxa dadka ka yidhaahdaan gadaashaada kuwaasi waa kuwa cillad ka raadiya qofka kale noloshiisa halka ay dhibaatada naftooda haysta sixi lahaayeen kuwaasina waa dadka nolosha ka dhacay 12 ha ka walwalin kuwa nacaybka ka buuxo way caraysan yihiin sababtoo ah runta aad ka hadasho ayaa burinaysa beenta ay ku nool yihiin oo faafinayaan mar walba noqo haliyey hoggaanka u haya naftiisa 13 ha ka walwalin waxa maqan iyo mustaqbalka alla ayaa garanaya wixii dhici doona xoogga saar inaad wanaajiso maanta iyo wixii aad haysato kana faa'iidayso xooggaaga dhallinyaronimada inta aad wax qabsan karto waa inta aad tahay dhallinyarada mar haddii gobolku kuu dhaco ama aad duqowdid waxba ma qabsan kartid 14 ha ka walwalin haddii meeshii aad rabtay aadan joogin alla ayaa garanaya meeshii kuu roon sabir kuna qanacsanow halka aad joogto waayo alla subxaana wa tacaala ayaa kuu dooray halkan isaga ayaana kuu doori karo meel ka sii fiican halkan waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan aad daawatay fadlan u sheer garay asxaabtaada like-na saar fiidiyowgan kuna soo biir janaalka sahanwade kobciyaha garaadka dhallinyarada Soomaaliyeed mahadsanid walaal kani waa walaalkiisa ka Cabdi Yaasiin